calaykum akhyaarta sharafta badan kusoo dhawaada kanaalka dhacdooyinka dunida tube waad uga barateen barnaamijyo xiiso badan. maantana mawduuca waxaan kusoo qaadan doonaa taariikhda aasaasaha shirkadda Facebook. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe riix, sidoo kale like-ta naga ilaawin si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Mark Elliot Zuckerberg wuxuu dhashay May 14, 1984. da'diisu waxay tahay 36 sano jir, wuxuuna ku dhashay bannaanka cad ee New York ee dalka Mareykanka. heerkiisa jaamacadeed wuxuu kusoo qaatay jaamacadda Harvard. waa nin weyn oo warbaahinta Mareykanka caan ka ah, sidoo kale ah ganacsade internet iyo samafale. wuxuu caan ku yahay aasaasidda shirkadda Facebook, wuxuuna u shaqeeyaa guddoomiye ahaan madaxa fulinta iyo xakameynta saamileyda. wuxuu sidoo kale yahay aasaasaha mashruuca horumarinta shiraaca qoraxda ee Breakthrough Starshot, wuxuuna u shaqeeyaa sida mid ka mid ah xubnaha guddiga sanado firfircoon. 2004 Shadir known for aasaaska iyo hogaaminta shirkadda Facebook. qiimihiisu dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasay xilligaas inuu yahay $99.6 bilyan. isuduwaha aasaasaha iyo iskudubaridka barnaamijka Shan Zuckerberg Initiative. xaaskiisa u dhaxday waxaa lagu magacaabaa Priscilla Shan, asal ahaana kasoo jeeda dalka Shiinaha, waxayna isguursadeen sanadii 2012. caruurta ay isku hayaan waa 2. Zuckerberg wuxuu dhigtay jaamacadda Harvard, halkaas oo uu ka bilaabay adeegga shabakadda bulshada ee Facebook. qolkiisa jiifka bishii Febraayo 4, 2004, oo ay wada deganaayeen asxaabtiisa kala ahaa Eduardo Severin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz iyo Chris Hughes. asal ahaan waxaa loo bilaabay in lagu xusho xarumo kuliyadeed. goobta ayaa si dhaqso leh ugu fiday kuliyadaha oo gaadhay 1 bilyan oo isticmaalayaal ah. markaas oo ahayd sanadii 2012, Zuckerberg wuxuu shirkadda u qabtay bishii May 2012 saamigii ugu badnaa ee taariikhda. sanadii 2007, marka uu ahaa 23 sano jir, wuxuu noqday bilyaneerkii ugu da'da yaraa adduunka laga soo bilaabo xilligaas. qiimaha saafiga ah ee Zuckerberg waa $111 bilyan, arrinkaas oo ka dhigaya qofka afraad ee adduunka ugu taajirsan. waa qofka keliya ee ka yar da'da 40 sano liiska Forbes ee 20 qof ee ugu taajirsan caalamka laga soo bilaabo 2010. majalada Time ayaa u magacowday Zuckerberg mid ka mid ah 100 qof ee ugu taajirsan uguna saameynta badan adduunka, qaybna ka ah abaalmarinta qofka hawlkarka ah ee la siiyo oo ah mid sanadle ah. bishii Sebtembar 2016, Zuckerberg wuxuu galay kaalinta 10aad liiska Forbes ee dadka ugu awoodda badan dunida, macnaheeduna yahay xagga dhaqaalaha. noloshiisii hore, waalidkiis dhanka hooyada waxaa lagu magacaabaa Karen, ahna dhakhtarka dhimirka. dhanka aabihiisna waxaa isna lagu magacaabaa Edward Zuckerberg, oo isna ah dhakhtarka ilkaha. isaga iyo 3 gabdhood ee walaalihiis ah, laguna kala magacaabo Ronnie, Donna iyo Ariella, waxaa lagu soo koriyey Dobbs Ferry, New York, tuulo yar oo ku taal Westchester County oo qiyaastii 21 mayl waqooyi kaga beegan Midtown Manhattan. Zuckerberg waxaa lagu soo koriyey guri ku yaala aagga Yuhuudda. awoowayaashiisna waxay kasoo kala jeedaan dalalka kale ah Jarmalka, Austria iyo Poland. wuxuu lahaa Star Wars themed bar. markii uu 13 sano jirsaday, wuxuu dhiganayay dugsiga sare ee Adderley. Zuckerberg wuxuu ku fiicnaa fasalada. 2 sano kadib wuxuu u gudbay dugsiga gaarka loo leeyahay ee Phillips Exeter Academy, halkaas oo uu ku mutaystay abaalmarino xagga xisaabta, cilmiga xidigaha, fiisigiska iyo daraasadda qadiimiga ah.
Markii uu yaraa wuxuu sidoo kale ka qayb galay xarunta Johns Hopkins Center ee loogu talagalay dhalinyarada xagaaga codsigiisa kollejka. Zuckerberg wuxuu ku sheegay inuu akhrin karo oo qori karo Faransiis, Kibran, Laatiin iyo Giriigii hore. Wuxuu ahaa kabtanka kooxda dayrka. Shaqadiisu waxay ahayd soo saaraha software-ka. Sanadihii hore, Zuckerberg wuxuu bilaabay adeegsiga kombiyuutarada iyo qorista software-ka dugsiga dhexe. Aabihiis wuxuu baray Atari Basic Programming Language sanadku markuu ahaa 1990kii. Markii dambena wuxuu ka shaqaysiiyay soo saarista software-rada shirkadda David Newman. Si uu si gaar ah u baro, Zuckerberg wuxuu ku qaatay koorso qalinjabiye maadada kulliyadda Mercy ee u dhow gurigiisa inta uu weli ku guda jiray dugsiga sare. Hal barnaamij tan iyo markii aabihiis dhakhtarka ilkaha uu ahaa, wuxuu ka shaqaynayay gurigooda. Wuxuu dhisay barnaamij software ah oo uu ugu yeeray ZackNet, kaasoo u oggolaaday dhammaan kombiyuutarada u dhexeeya guriga iyo xafiiska ilkaha inay wada xiriiraan. Waxaa loo arkaa nooc hore oo ah AOL Instant Messenger, kaasoo soo baxaya sanadaha soo socda. Muuqaal ay duubtay warbaahinta New York ayaa lagu sheegay Zuckerberg inuu ahaa carruurta mid ka mid ah waxay ciyaareen ciyaaraha kombiyuutarada, markaa ayaa abuuray barnaamijyo wax ku ool ah. Zuckerberg laftiisu wuxuu xasuustaa muddadaas, wuxuuna yidhi hadalladan: "Waxaan lahaa saaxiibo fara badan oo farshaxan yaqaan ah." Halkaasna waxaa inoogu eeg barnaamijkeena uga hadlaynay taariikhda aasaasaha shirkadda Facebook. Aad iyo aad ay mahadsantihiin. barnaamijkan barnaamij lamid intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.